بسم الله الرحمن الرحيم السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي هبون صاحبين ugu xiranow halkaad naga daawanaysaan waa Runsheeg TV waa bartaan YouTube ka kuleenay saaxiibayaal qodobada ugu waaweyn aan warkaydin kugu aynana waxa kamid ah shirka Muqdisho lagu kala qaybsamay taageero uu helay madaxweyne Farmaajo weerar dad badan lagu dilay oo ka dhacay gudaha Kenya iyo qaramada midoobay Amisom oo ka hor yimid go'aankii dawladda federaalka ee garoonka Aadan Cadde qodobadaas iyo qodobo kale ayaan saaxiibada ugu xiranow fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa inaad subscribe inoo saadhaan like-na inagu dhiirigelisaan gamaleelka furataan si warbixinadii u dambeeya oo heshaan idanka alle saaxiibayaal sida hordhac warkayga baad ku daawateen haddaynu ku bilowno shirkii Muqdisho oo lagu kala qaybsamay taageero uu helay madaxweyne Farmaajo waxaa magaalada Muqdisho caasimada dalka ka furmay shirka golaha wadatashiga qaran midkaas oo qorshihiisu ah in looga hadlo xaaladda amniga dalka iyo waliba cabashada doorashada balse Rooble ayaa waji kale shirka u yeelay kadib markii uu dhaqmay si aan ahayn ajandaha shirka loo yimid waxa uu isku dayay in uu maamulada madaxweyne Farmaajo taabacsan uu ka dhaadhiciyo inay si wada jir ah u soo saaraan warqad ay ku dhaleecaynayaan madaxweyne Farmaajo balse waxa uu kala kulmay waji gabax kadib markii qoorqoor lafti gareen iyo waliba Guudlaawe ay isku mar shirka damcaan inay ka kacaan Rooble ayaa wali u dhaqmaya qaabka dadka qowlaysatada iyo kuwa aan kala jecleen dawladnimada iyo qarannimada Soomaaliya Rooble ayaa rabay inuu ka faa'iideysto waqtiga kala guurka isagoo amniga iyo horumarka dalka raba inuu siyaasadeeyo waxa uu maanta banaanka soo dhigay aragtidiisa mucaaradka ee ka guuxay maadaama wasiirka amniga ninka lagu magacaabo Cabdullaahi uu shalay isku dayay inuu niise ka soo saaro garoonka Aadan Cadde midaas oo beesha caalamka ay uga digtay inuu falkaasi ku dhaqaaqo wararka aan ka helayna shirka ayaa tilmaamay inuu marqarka u fuulay in uu fashilmo maadaama Rooble shirka oo aan bilaaban uu codsaday in marka hore la dhaleeceeyo madaxweyne Farmaajo isagoo sheegay in shirka kadib uu furmi doono daawadayaal waxa xusid mudan in hawsha Rooble rabo in ay ku taageeraan maamulada oo xalay guryahooda ugu tagay ama goobaha ay ka degan yihiin magaalada Muqdisho balse ay ku diideen una sheegeen in uusan ka bixin ajandaha ay Muqdisho u yimaadeen oo ah xalinta tabashada doorashada xukuumadda uu hogaamiyay wasaare Rooble ayaa u muuqatay mid ka faa'iideysanaysa xilliga kala guurka iyadoo ku mashquulshay dhulboob iyo waliba ka ganacsiga amniga dalka Rooble ayaa ku mashquulsan sidii uu mucaaradka aan la aqoonsanayn cid ay mucaaradka ku yihiin oo qancin lahaa maadaama uu yahay shakhsi aan lahayn aragti siyaasadeed oo loo jihaysan karo ama la raaci karo weerar dad badan lagu dilay ayaa ka dhacay gudaha dalka Kenya dagaalyahano hubaysan oo loo maleynayay inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ayaa saaka weerar xoogan ku qaaday deegaanka Widho oo taga magaalada xeebeedka Lamu ee dalka Kenya weerarkan dableyda oo hubaysan fuliyeen ayaa la sheegay in lagu dilay ilaa 6 qof oo ku sugnaa duleedka Widho dadka la dilay qaarkood ayaa la sheegay in la gubay halka kuwa kalena la gowracay booliiska Kenya war ka soo baxay ayaa lagu sheegay in dableyda hubaysan dad shacab ah ay dileen sidoo kalena gubeen guryo ku yaala deegaanka ay weerarka ka fuliyeen waxayna booliisku xuseen in dableydan weerarka fulisay ay ka tirsan yihiin Al-Shabaab ciidamada ammaanka dalka Kenya oo gaaray deegaanka weerarku ka dhacay ayaa halkaasi ka bilaabay howlgalla ay ku baadi goobayaan dableydii ka dambeysay weerarka kadib weerarka dadka badan lagu dilay ee ka dhacay Lamu Al-Shabaab ayaan wali ka hadlin weerarkan ka dhacay dalka Kenya lagu eedeeyay waxaana Al-Shabaab ay hore weeraro badan oo khasaare kala duwan dhaliyay ka geysteen oo gudaha dalka Kenya gaar ahaan dhul xeebeedka Lamu qaramada midoobay iyo Amisom ayaa ka hor yimid go'aankii dawladda federaalka Soomaaliya ee garoonka Aadan Cadde khilaaf xoogan ayaa ka qaraxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo qaramada midoobay kadib markii terminalka ay adeegsadaan oo ku yaala garoonka Aadan Cadde ay xirtay dawladda federaalka Soomaaliya 2 toddobaad ka hor xafiiska qaramada midoobay ee Soomaaliya UNOSOM iyo Amisom ayaa qoraal warbaahinta ay la wadaageen kadib go'aankaasi ku sheegay in ay u hoggaansameen go'aanka dawladda federaalka si kastaba sida ku cad warqada qarsoodi ah labada urur ayaa si rasmi ah uga hor yimid go'aanka dawladda federaalka iyagoo oo ku doodaya in xiritaanka terminalka ee xilligan uu halis gelinayo diblomaasiyiinta iyo askarta adeegsada
garoonka ee qaarkood wata hubka. warqad diblomaasiyadeed oo loo yaqaano verbal oo amisom iyo unisom ay u direen dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan ku baaqaynaa in si degdeg ah dib loogu soo bilaabo howlgelinta terminalka si loo xaqiijiyo sii wadida iskaashiga iyo fududeynta waajibaadkeena. go'aanka ay dowladda federaalka Soomaaliya si degdeg ah ugu xirtay terminalka ma ahayn mid la jaan qaadi kara iskaashiga wanaagsan iyo xiriirka wada shaqeynta ee qaramada midoobay iyo amisom ay la lahaayeen dalka martida u nahay tan iyo markii la bilaabay howlgalka Soomaaliya ayaa lagu yiri warqadan loo diray wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. unisom iyo amisom ayaa waxa Muqdisho ka jooga shaqaale oo la taaban kara kuwaas oo aad u adeegsada garoonka Aadan Cadde. warqadan loo diray dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shaqaalaha caalamiga ah oo loo wareejiyo terminalka ay adeegsadaan shacabka uu abuurayo ciriiri isla markaana shaqaalaha qaramada midoobay iyo amisom ay ka dhigayso kuwo durbadiiba la aqoonsan karo oo noqon kara bartilmaameed taasoo sidoo kale halis gelin karta sida warqada lagu sheegay amniga shacabka. qaramada midoobay iyo amisom ayaa sidoo kale ku doodaya xiritaanka terminalka ay ka dhigan tahay in diyaaradaha rakaabka iyo xamuulka ee labada urur ay culays ku noqon karaan dibna u dhigi karaan diblomaasiyadda rayidka ee garoonka Aadan Cadde. kadib markii dowladda federaalka Soomaaliya ay xirtay terminalka waxay sheegtay in ay la wareegi doonto isla markaana geyn doonto shaqaale amni Soomaaliya iyadoo ku eedeysay kuwa caalamiga ah inay dhinac mareen nidaamka amniga. si kastaba unisom iyo amisom ayaa u sheegay dowladda federaalka inay raacday heshiiskii loo yaqaanay Sooma ay horey u wada galeen isla markaana lagala tashto ka hor inta aan shaqaale Soomaaliya la geyn terminalka. heshiiska Sooma ayaa dhigaya in iyadoo aan la eegin cidda samaysay xarunta ay qaramada midoobay markasta si toos ah u maamuli doonto. warqada ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda oo ay u helay Runsheeg TV ayaa lagu sheegay in dhowr sababood loo xiray terminalka oo ay ka mid tahay inay adeegsadeen rakaab aan ahayn amisom iyo qaramada midoobay taasoo jabinaysa hanaanka socdaalka sharciga ah. waxaa sidoo kale warqada lagu sheegay in marar badan ay dhaceen duulimaadyada qaramada midoobay ay soo caga dhigteen garoonka iyagoo aan ka hor waaxda socdaalka u soo gudbin dukumiintiga rasmiga. wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in qaar ka mid ah duulimaadyada adeegsada terminalka ay soo qaadeen dad aan haysan baasaboor ama ay warqada ka dhiman yihiin taasoo ka dhigan in ay si sharci darro ah ku soo galeen Soomaaliya. warqada ayaa qaar ka mid ah qandaraaslayaasha qaramada midoobay ku eedeysay in terminalka ay u adeegsadeen in ay u gudbiyaan amba ka gudbiyaan waxyaabo sharci darro ah. warqada ayaa intaasi ku dartay in sidoo kale ay jiraan xaalado qaar ka mid ah shaqaalaha waaxda socdaalka lagu xadgudbay ama loo anjabay taasoo horey loogala hadlay qaramada midoobay. macadda haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay ka laaban doonto go'aankeedii iyada oo warqada qaramada midoobay iyo amisom ay u direen laga dheehan kara hanjabaada inay joojin doonaan howlgallada haddii aan dib loo furin terminalka. unisom iyo amisom ayaa dalbaday kulan ku aadan arinta oo lagala yeelanayo dowladda federaalka Soomaaliya. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27 Generaal Axmed Maxamed Culus oo Treedisho ayaa sheegay in ciidamada dowladda oo ku jira howlgalkooda caadiga ay weerar jidgal ah lagu sameeyay si la mid ah weerarkii lagu qaaday gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cismaan. taliyaha warbaahinta kula hadlaya Beledweyne waxa uu sheegay in ciidamada lagu been abuurtay oo lagu sheegay in ay iyagu weerar qaadeen waxa uu ku tilmaamay arintaas inay tahay mid aan waxba ka jirin. sidoo kale waxa uu hadalkiisa intaas ku daray in wixii dhaqan iyo xal ah looga baahan yahay odayaasha dhaqanka sidoo kalena ciidamadu ay yihiin kuwa ka madax bannaan siyaasadda cid kasta oo ku soo duushana ay iska qabanayaan isagoo cadeeyay inuu ka xun yahay wixii ka dhacay Beledweyne. hadalka taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed qaybta 27 Generaal Axmed Maxamed Culus oo Treedisho ayaa ku soo aadiyay xilli shalay deegaanka qowl ay ku dagaalameen ciidamada dowladda iyo kuwa uu hogaamiyay sarkaal lagu magacaabo Nuur Dheere kaasoo ka soo horjeeda maamulka Hirshabeelle. waagag saaxiibayaal inta aan ku soo gabagabeynaa warkii aad ka daawanaysaan Runsheeg TV fadlan haddii aad nagu cusubtiin waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa subscribe noo saardaan like na nagu dhiirigelisaan gambaleelka furata soo warbixinadii ugu dambeeyay oo heshaan idanka alle.